آه، الله سوري waa ka xubahay sida xun ay ula dhaqmayso gabadhan waa cajuusadii ayay goos ka qabtaa gabadhan yar waxaana dhashay gabadhan midaan yar hadda qolka kusii ordaysay cajuusadii ayaa dhashay gabadhan eeda ayaa loo yahay cajuusada ayaa eedu ah waatana iyadoo lasoo dirdiray oo tii yareed soo dirdirtay hadda ayayna maaragtay sidee doonta ula dhaqmaysaa waa ujeedaan naxariis darada ay ula dhaqmaysaa qof hadduusan hooyadiisa u joogin waa iska dhibkan ayay leedahay eedo markii lagu geeyay inkastoo eedooyinka ay isku mid ahayn oo eedooyin aad u wanaagsan ay iska jiraan inkastoo aan ka hadlaynay mid eedooyinka aabbaha uu qabo waa markii lagu hoosgeeyo eedada aabbahaaga uu qabo waa iska sidaan sorry waa ka xumay walaa waa iska dhibaato mar hadiisan hooyo ku joogin ama hooyadaba ag joogin sababtoo ah hooyo sidaan kulama dhaqmayso habartii cajuusada ahayd iyo gabadheedii waxay isla galeen qolkii guriga ayay iskaga raaxaysanayaan gabadhii eedada loo ahayna dhanqos waa kana meeshaan ayay iskaga dhaqmaysaa oo meeshaan ayay iskaga dulaysanaa waa iska dhibaato sorry oo aad baan uga xunnahay oo jeeda habartii cajuusada ahayd sida ay ula dhaqmayso gabadha eedada waxaa kaaga sii daran waxay ku faraxsan yihiin sida ay ula dhaqmayaan ee foosha xun ayay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin inay gabadhan sidaan ay ula dhaqmaan oo ay iska gumaystaan oo ay see doonaan ay ula dhaqmaan marka waana dhibkaasoo dhan waxaa ka socotaa dhanka habarta cajuusada ahayd aad baa uga xumahay waa iska sidaan insha allah waa qaybtii lixaad oo aan idin soo gudbin